waxaa lagu guuleystay xalinta tabashooyin ay qabeen ciidanka militariga Soomaaliya. waxaa lagu wadaa in ciidanka dib ay ugu laabtaan magaalooyin dhowr ah oo ay horey kaga soo baxeen. waxaa soconaya abaabul ciidan oo ka dhana kooxda shabaab kaas oo la doonayo in dib loogu sii wado dhamaystirka howlgalka wejigiisa koowaad si loogu gudbo howlgalka wejiga labaad ee ka dhana kooxda shabaab. cadale waxaa gaaray ciidamo badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya. ciidamadan ayaa la doonayaa in lagu xoojiyo ciidanka markaas soo baneeyay furmaha hore ee dagaalka ee gobolka Galgaduud. qorshahan ayaa ah in ciidanku markaas si wadajir ah ay u dhaqaaqaan howlgalka ka dhanka kooxda shabaabna markaas ay horey u sii wadaan. geesta kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa gaaray magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in halkaas kulamo gaargaar ah uu kula qaato saraakiisha ciidanka ee ku sugan Aadan Yabaal, isaga oo sidaas oo kale markaasi booqan doona ciidanka ku sugan furmaha hore ee dagaalka. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa loo soo wakiishay inay markaasi dhageystaan tabashooyinka ciidanka iyo saraakiisha ay qabaan iyo sidaas oo kale waxyaabaha sababay in la soo baneeyo magaalooyin dhowr ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud khudbadiisii xalay waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo la xiriira dagaalka ka dhanka kooxda shabaab. madaxweynuhu waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono cid waliba oo markaasi awood la siiyay isla markaasina ku tagrifashay. madaxweynaha waa ka dhab dagaalka shabaab marka loo eego khudbadihiisa iyo hadallada uu jeediyay, waxaana soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay iyo diyaargarowga markaas ciidanku horey ay ugu dhaqaaqi lahaayeen. ciidamo badan oo ku sugan cadale ayaa lagu wadaa in markaas horey ay u dhaqaaqaan isla markaasna ay dhammaystiraan howlgalka wejigiisa koowaad si markaas uu bilowdo howlgalka wejiga labaad ee ka dhana kooxda shabaab. xilligaanina waxaa soconaya qabanqaabadii iyo diyaargarowgii ugu dambeeyay ee markaasi la gelinayo ciidanka militariga Soomaaliya. wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka ku soo kordha daawaday halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo. hase haatee aan ku xasuusiyo haddii boggeena aad ku cusub tahay inaad soo follow gareyso muuqaalkeenana lag aad saarta si uu gaaro saaxiibo fara badan sidaada oo kale. qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oo raahdaada kaaga aadan wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka aan kuu soo gudbinno. mahadsanid daawade.